السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برنامج كدحريب واسبوع بها مرد كي مدى حرمت ترو كيبل سبورت تي في مقالة هرقيسة ما انت برنامج كوحا مرتي يقوى عياريها فرحان وكمل عيارتوي دلك سوامر كود يقوم من نقارهان قبل كاساحل فرحان عاد بكوسو دوين يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحليل وحول الله بلابا بس إنك أوه الرياء وانكو سلام يا صاحب وانكو سودوهي اوكي فرحان ان ugu horeyn dadka si ay ku bartaan bal magacaaga saddexan dhalashadaadii xilliga dhalatay goobta ku dhalatay iyo heerarkaaga waxbarasho iyo bartii aad wax ku baratay bismillaahi raxmaani raxiim anigu horta waxaan ku dhashay magaalada Burco balse markii aan ilaa adigu 6 jir meelahaas ayaan u soo wareegnay xaggan iyo magaalada Hargeysa halkaasi oo aan ka galay dugsigii ugu horeeyay aan ka galay dugsiga hoose dhexe ee Quraadheer oo ku yaala magaalada Hargeysa ilaa waxbarashadeedii aan ka soo gaaray fasalka 8aad waqtigaasi oo ay dhacday waqtiyadii dagaaladii ay dhaceen 1988 aan ka soo kaga qaxnay isla soo noqodkii wadanka lagu soo noqdayna markii wadanka lagu soo noqday isla 1992 ilaa 93 ayaan xaggan berbero soo kacay halkaasi oo aan waqtiga shaqo ka helay ilaa intaas oo muddadii dambe oo dhan aan saa ku joogay aad farxan waan soo noqon doonaa taariikhaha kale farxan ugu hore waxaan jecelahay maadaama barnaamijka dhaxareeb uu quseeyo taariikhda haliyada kubadda cagta soo maray si runtii aan u ururno taariikhdaas oo runtii tixraac u noqoto bal ugu hore waxaad runtii aan jecelahay ciyaartoy kasta oo magac kubadda cagta ka sameeyay de wuxuu soo maraa marxalado kala duwan oo yaraanimadii iyo heerarkii hoose bal waxaad noo soo bilowdaa oo wax yar ka tilmaamtaa waqtigaagii heerarkii biida iyo bartad ku soo qaadatay maxamed waxaan ku soo qaatay waqtigii kubadda cagta horta sideedaba kubadda cagtu waxaan ahaan inay iskaga abuuran tahay ilaa yaraantaydii anigoo 6 jir ama 5 jir waxa aan joogay Hargeysa kubadda aad baan u jeclaa xitaa khaasatan waqtiyada waxaan soo gaaray waqtiyadii gobolada aad u ciyaari jireen gobolada waqooyi galbeed Togdheer Boosaaso marka waqtiyada rag badan oo waqtiga kubadda ciyaari jiray oo gobolka awdal u ciyaari jiray gobolka waxaan u jeedaa waqooyi galbeed u ciyaari jiray ayaan run ahaantii jaar ahayn dabtan anigoo inaan yara ayaan raaci jiray marka ama ay alamiinteynayaan si aan alaabta ugu hayo marka ilaa waqtiga ilaa yaa kamid ah ciyaartooyga kamid ah gobolka waqtiga ciyaartooyga waxa kamid ah in loo jiray Allah u naxariistay oo jaar ahayn oo laba guroos ku xiga ahayn loo jiray Cabdi Fiiriyome oo imika dhintay Allah u naxariistay oo 1978 ka soo bilow ilaa 83 wuxuu ahaa number 5 kii gobolka waqooyi galbeed waqtigaas waa ninkii diri dhabe boos ka cidhiirsaday booska bedelay markii dambe macallin diri dhabe waqtigaas markaas ilaa waqtigaas ba kubadda way ku abuurnayd waxaan ahaa kooxaha yaryar ee halkaa ka ciyaara waxaan ahaa waa ku dayan jiray hadii goor ciyaar kuna kama maqlaan jirin hobbigiisa ay ku abuurantahay baan ahaa dabadeeto adigu waqtiyada dhalinyaro badan baan isku waqti ahayn oo isku fac ahayn oo isku ciyaal ahayn dhalinyaradaas kolley rag badan baa tilmaanaa imika rag badan oo masab Soomaaliland ku leh oo ka mid yahay Cabdikariin Axmed Mooge maayarka taariikhiga marka anigoo marka dugsigii dhexe ah Cabdikariin Axmed Mooge maayarka magaalada Hargeysa ayaad isku waqtigaas soo wada qaadatay heerarkii biida miya وكمل بوها رجع نصوّد قاعدني وحكملها اللهم صل على محمد أنا سرقنا سكفاء هنا وولي رج بدن أو كلام سكو جلاس أنا وهني سودوي ياسين أبا يروح كلا إياه رج بدن أو إمك يرتي قدي عنك سوماليلاند دبلت مدة وقت جاء أنا قحني دجالات ودعان إلا أدو 89 أيون بان كبديدو أي أسود دوي هير كلابات دبلت وحن كود عياري كني Cabdikariin Axmed Mooge kale waxaan iska mid ahayn koox kubadda cagta oo meel aan u qaxnay oo loo jiray Kaama Bakar waxaan la ciyaari jirnay xabashidii baan la ciyaari jirnay waxaan kale la ciyaari jirnay niman badan oo naga waaweynaa waqtiga waa yaragaha ay kamid ahaayeen rag badan ay kamid ahaayeen gaabush in la yiraahdo kala iyo
miday iyo rag badan oo noocaasa allahuma salli calaa maxamed nin kaloo isaguna iga weynaayo waktigaas aan walaalahayn oo waktiyadii kubadda cagta ee waktiyadii dagaaladu dhici doonaan ka horba ahaa dhalinyaradii u sharaxnayd inay gobolka mudato gobolka waqooyi galbeed mudato cali dhowqaal odhan jiray kule dadka wada garanayaan ninkaas oo aada iga caansanaa oo isaga laftigiisu kooxda kale oo raggan dee la ciyaari jiray ayay kamid ahaayeen marka aniga cabdikariin inta badan farxaan waayahay farxaanow horaan ugu soconaynaa bal waqtiyadaas aad heerarka yaraanta biida marxaladaha aad soo socotay yuu ahaa childhood idolkaaga ama qofkii aad ku dayan jirtay markii aad yarayd aad socon jirtay marun la ciyaar ama marun ka dhinac ciyaar wallaahi raggaasi way badnaayeen laakiinse ninkii aan aada u jeclaan jiray jeclayna soo qaadato halkii qof aan aada kubaddiisa u jeclaa aan dooni jiray inaan aada ugu daydo waxa uu ahaa ciyaartooyga somaliland soo maaha waktigaa ciyaartooyga somaliland ahaa waktigaa yaraa ninkaan ku dayan jiray waxa uu ahaa nin la odhan jiray oo adigu aan kubaddiisa aada u jeclaa wuxuu ahaa nin la odhan jiray shakuur oo u ciyaari jiray gobolka waqooyi galbeed ciyaaryahan shakuurkii kamid ciyaartooyga xulka gobolka 1984 kusoo guuleystay koobka ha kaas waktigaas oo 1994 aan taageero ahaa uu dhaliyay goolkii ay ku qaadeen gobolka waqooyi galbeed koobka ay ku xalaashadeen waktigaas yay ka qaadeen cidda ka qaadeen ma xasuusataa shubada hoose ayay ka qaadeen hargeysaan joognay waktigaa anagu laakiin halkaas ka taageerino recordka ayaanu dhegta ku haynay waxaan taageerayaashii hargeysa sida fiican u dambaal degan kamid ahaa waktigaa farxan waqtigaas si fiican ma xasuustay waqtigaas waxay 1984 waqti aad u fog baad ma si fiican ma xasuustay waayo si toosan u xasuustay standard 6 baan ahaaba si fiican baan u xasuusanahay aad farxan haddaan ka yar dhex galo maxamedow ciyaarta semifinalka ciyaar haddaan wax kale kusii sheegan kusii tuso ciyaarta semifinalka waxay kusoo mareen gobolka bay oo gobolka bay baa la odhan jiray moogta oo waxay ahayd baydhabo oo gobolka bay baa la odhan jiro semifinalkii goolkan isagaa waqtigaa isla goolkaasna isagaa dhaliyey aad markaa ninkaasaa ku ahaa qofka aad role modelka ku ahaad jeclay inaad marun sidiisa u ciyaarto ku dayato cabdishakuur buu ahaa aad farxan kadib waa laga soo gudbay marxaladahaas yaraantii biidii heerarkii adigaa ciyaartooy noqday kooxdii kugu horeysay heerka koowaad kala qayb qaadata seereeda kooxdee bay ahayd yaase waqtigaad koox noqoteen kooxdii koowaad aan heerka koowaad kala qayb galo waxay ahayd heerka koowaad aan kala qayb galo waxay ahayd koox la odhan jiray 1991 koox la odhan jiray 31 May sideedii kooxood ee hargeysa koowaad ee ka samaysmay ayaanu ka mid ahayn markaan waxaan ahaa kooxdii la odhan jiray 31 May waxaanu ka wada mid ahayn maayarka taariikhiga cabdikariin axmed mooge waxaa kaloo ka mid ahaa nin la odhan jiray gacal oo wasaaradda ciyaaraha agaasime ka ahaan jiray waxaa kaloo isna ka mid ahaa mustafa cirid baa ka mid ahaa ciid ciisa ka mid ahaa raggii waktigaas aanu inkastaanu dee da-yar ahayn haddana raggaan la ciyaarinay dee kooxu waayaar ugu badnaayeen haddana waktigaygii koowaad aan kala qayb galo waayo waxaan la ciyaarayay kooxo waaweyn oo khatar ahaa oo ay ka mid ahayn oncod batroolka oo ay u ciyaaraan allah u naxariistay mukhtaar xamiro waad garanaysaa oo waqtigaa u muuqday professional muruqihiisa iyo jidhkiisa iyo physicalkiisa aad yaabaysay waxaa ka mid ah oncod oo u ciyaaro nin weeryahan halis ahaa oo jibriil sambaloshin la yidhaahdo waxaa kaloo la ciyaari jirnay qolo la yidhahdo al nasr ay u ciyaari jireen ninaan walaalanay oo cali dhooqo la odhan jiro difaac uga ciyaari jiray weli axmed xaawo gaabuush nin nimanka xildhibaan golaha deegaanka kusoo baxay oo la yidhaahdo yaasiin cumar yare rag badan oo noocaasi farxan haddaan hore ugu soconno farxanow waqtiyadaas hargeysa aad ku soo qaadatay kooxdaa la soo qaadatay ma xasuusta ciyaartii kugu horreysay garoonka gashay adigoo seereeya iyo kooxda aad ka hor timi ciyaartii koowaadaan garoonka galay waxaan ka hor nimi waxay ahayd waktigaas ayay ahayd ciyaartii koowaad waxaan la ciyaaranay batroolka anagu waxaan run ahaantii ahayn dhalinyaro da-yar batroolku naga waaya aragsanaa ciyaartaas ayay ahayd ciyaartaasna waxaanu la ciyaaranay koox uu kabtan ka ahaa mukhtaar xamirow allah u naxariistee mukhtaar xamirow baa ku jiray nin bacaw la odhan jiray baa ku jiray ciyaartaa waana laga guuleystay laakiinse waan xasuustaa waa goolkaygii koowaad aan heer koowaad ka dhalay ayaan ka dhaliyay maalintaa goolkii koowaad ee aan dhaliyo iyadoo weliba aan ka dhaliyay weliba mukhtaar xamirow oo difaacyahan
difaac weeraryahanadu aad uga baqaan uu ka mid ahaa fursad wanaagsan oon ka helay goolkaas weli waan xasuustaa farxaddiisii ilaa iminka waan xasuustaa واي فرحان مختار markii Beberuman moodayay inaad berbera isku barateen oo berbera isku horeyseen shawana hore soo taqaaneen horaan soo maray inkastoo waqtigaa dee anigu nin yar ahaa run ahaantii ka yaraa iyo wanaagsan iga professional واي فرحان reer Hargeysa ahayd xilmaad magaalada berbera u soo wareegtay markaa waxaan u soo wareegay 1991 horta maxamed waan ka yar faa'iideysanayaa Maayir Cabdikariin oo run ahaantii haddaan ku yar noqdo kooxdeedii Koobistan Kamay Maayir Cabdikariin oo waqtigaa laftigeesaba u muuqday inay ku soo jirto sifo ama ay ka muuqato hal abuur waqtigaas oo aad garan karaysay anagoo isku facahay haddana aad dareemi karaysay inuu ku sifaysnaa nin u yacni hal abuur leh horta anoo ka faa'iideysanaya halkan waan ugu ducaynaya waxaan leeyahay ilaahay ha kuu fududeeyo hawshaas si wanaagsan ee ummadda intaa laga ku igmatay annaguna waan ku garab taaganay halkaas maayarada kale ee Allahumma salli ala Muhammad waxaan kale uga ducaynayaa inaanu noqonin maxamed waxa la yiri nin tunkiisa ka dhaashtay tagoogtiisa ma oga insha Allah inaanu noqonin nin tunkiisa ka dhaashtay tagoogtiisa aan ogeyn inkastoo maayaradii farxaan ku soconaynaa ducadaas iyo talooyinka waa gadaal baan marsanayna sax farxaan magaalada berbera markii aad timi ilaa wixii barnaamijku badda cagta u qoseeyay sidee kugu suurta gashay markiiba inaad hadan la qabsato iyo kooxdii kugu horeysay berbera aad u ciyaarto wallahi maxamedow isla 29 markii aan tagay berbera shaqaan ka helay markii shaqadaan helay ka bacdi adigu berbera waqtigaa kubaddu kumay badnayn kooxa yarar baa marmar ciyaari jiray waan soo daawasho tagi jiray dabeetana adigu ilaa 94 ayaa kooxo waxaan isbaranay dhowr inan baan isbaranay oo ka mid ahaayeen run ahaantii saaxiibkayga aad ku weynaa ee ticid baan isbaranay raggii aan isbaranay ka mid ahaa dabadeetana adigu inta badan shaqooyin iyo fiilaliyo xun bixi jirin baan haleeli jirin adigu 95 ayuun baan garoonka la galay nimankaas oo waqtigaas oo u ciyaari jiray koox oo ay ka mid ahaayeen ticid ka mid ahaa yagar ka mid ahaa ina xamari raa'id rag badan oo noocaas ka mid ahaayeen Saleebaan Daahir ya kooxda waxa la oran jiray adigu koox waqtigaa kooximay jirin laakiin isla waqtigaas ayaanu waxa aasaasmay kooxo ayaa aasaasmay dabadna kooxdii ugu horeysay ee aan u ciyaaro waxaanu ahayn dawladda hoosaan ciyaarino aniga iyo Saleebaan Daahir xinagood budda gahayr goolhaya Cabdixakiin Kobra Xuseen Cabdi Axmed Ticid Cabdirasaaq Cadleef Allahu naxariistay Cabdiraxmaan Cadleef rag badan Maxamed Suufi rag badan oo noocaas aan ahayn dabadeeto waxa sameysmay 6 kooxood 6dii kooxood ayaanu ka mid ahayn marka waqtigaas ayaa igu kooxda dawladda hoose waxay ahayd kooxdii 95kii sanadka sheegtay sanadkii ku xigay kooxdii horyaalka ahayd bay ahayd sax jinac bixi baa isna kabtanidin ahaa kooxdaas markii la ururinayay Saleebaan Daahir iyo Food Cadi rag aad u culus baa kooxdaas ku urursaday bal kooxdaas sidii la isugu keenay iyo fikradii ka dambeysay iyo bal sidii intii soo laacib isugu yimaadeen bal noo yar taabayadana maxamedow waqtigaas aanu soo yimaanay horta jinac bixi oo kale wuxuu ahaa kooxihii dekeduha jinac bixi ma ahayn dawladda hoose waqtigii dambe u ahaa Allahumma salli ala Muhammad waqtigii hore asaaskii hore bayskii hore waxaanu ahayn aniga iyo Ticid iyo Saleebaan Daahir iyo budda gahayr xinagood Cabdixakiin Kobra Cabdirasaaq Cadleef Allahu naxariistay Cabdiraxmaan Cadleef markaas iyo Maxamed Suufi oo run ahaantii noo ahaa tir dhaxaad oo nagu soo xidhay oo qalabkii wax walba xitaa dawladda hoose nooga soo qaaday waad garanaysaa waqtiga qalabkii wax walba adkaayeen marka waqtigan dambe ayaa raggan culisay maxamedow ay ku soo biireen waqtigaas waxaanu ahayn sidoo kale waxa iyaguna aad oo nala barbar ahaa naadiga dekedda jinac maxamed biixi mire wuxuu kabtan u ahaa naadiga dekedda wad xasuustaa marmane waxay ku ciyaari jireen deris wada cas ay ku ciyaari jireen way farxanow waxaan xasuustaa waqtiga dawladda hoose ahayd anagu garoomada maanu soo gelin runtii waxaan xasuustaa inaad waqtiga garoonka ku soo gali jirtay inaad baal tuuya ahayd markii dambana aad ahayd weeraryahan sagaalo afka hore ka ciyaara sax waxa kale oo ogahay at the same time inaad gool wala ahayd waliba goolka si fiican u yaqaana maxaa ku suurta geliyay inaad intaas oo position
aad ka ciyaarto marka hore adoo tuu ah markii dambe weerar noqotay haddana goolka aad ku fiicnayd bal iyadana la wadaag horta maxamed run ahaantii qofku hobby buu leeyahay kubadda waxaan inta badan la ciyaari jiray waxa horta ii suurtagelay inaan goolka barto waxaan inta badan la ciyaari jiray dadiga waaweyn waqtiyadii hore dee bayskii hore dee bays ahaan carruurnimadii dabadeed waxay ku odhanayaan dadkaa waaweyn oryaa horta goolka noo hay dabeed taas ayaa suurtagelisay markaa goolkii inuu ilaa dee caqabadii hor taalay bay ahayd markaa inaan xariif noqdo goolkii dee aan dee xirfadiisii yeesho difaacoo kalaa yimi waqtigan anagu aanu soo gelinay garoonka muddo badan maan ciyaarsanayn horta anigu booskayga asaasigii dee weeraryahan buu ahaa oo talentkaygu dee weeraryahan buu ahaa ninkan ku dayin jiray dee shakuur buu ahaa shakuurna weeraryahan buu ahaa markaa sidaa daraaddeed waxaan alaminto badan maan lahayn marka waxa ii suurta gashay ninka weeraryahankana kolley markaa adigu calaa kulli waxa ii suurta gashay in Salebaan Daahir oo run ahaantii markaa noogu weynaa yidhi farxaan xagaad ka ciyaari dabadna waxaan ku uri anigu baal baa haaf baan idin hayne si aan yacni aniguna alaminto badan u helo booskii baaba maxamed aniga laftigeygii filan waa igu noqday booskii baabaan ku fiicnaadayba isna sidaas ayaa iigu suurta gashay markaas iyo waqtigaas oo laga yaabo dee boosashanadan kale in lagu fara badan yahay weerarka iyo dhulkan run ahaantiina weerarkana waa lagu fara badnaa rag badan oo ka ciyaari karaynin oo ay ka mid ahaayeen Tuule Axmed Yaasiin ama Boqor Tuule oo kale ayaa afka hore booskayga oo kale 9 ka ciyaari jiray labada baal wax ka kala ciyaari jiray Allah naxariistay Cabdiraxmaan Caleef iyo Xinagood sidaas daraadeed markaas imay suurtagelaynin inaan ragana meesha garoonkana way iga soo horeeyeen run ahaantii markaana strangerna waan ahaa martibaan ahaa moogta marka waxa ka soo bilowdo marka inaan halkaas booskaas ku soo baro ragga de horta marka hore waa loo baahay farxan waqtigaas horyaal baad noqoteen labadii sano isku xigayba waxaad ku guuleysateen inaad labadii horyaal isku xigayba aad qaadaan waqtigaas bal ka waran dareenkaagu sidoo ahaa wallahi dareenkaygu aad buu fiicnaa wareegii hore run ahaantii wareegga ugu horeeyay maxamedow horta aan ku kala saaray ee wareegga ugu horeeyay ayuun anigu dawladda hoose ahaa wareeggii dambe dawladda hoose ku guuleystay caafi baan markii dambe u gudbay aan markaa intaan waan soo gaari doonaa taariikhdaas markaa horyaalka horun baan la ahaa oo weliba maxamedow waxaan xasuustaa maalmaha ka mid ah maxamed suufi kabtan baanu dooranay kabtannimada markii wareegga la bilaabay baanu kabtannimada dooranay moogta dabeeto maxamed suufi baa gurigiisii baanu fadhiisanay aan ku shirnay kabtannimadii baanu dhowr nin baa isu soo sharaxay nin fani ahaayo Axmed Maradona la odhan jiray waad garanaysaa kolley ayaa isaga laftigiisa waqtigaa maalmaha dambe nagu soo yaro biray dawladda hoose waxay haystay nin adeer rumo oo deyr baa la odhan jiray Allah naxariistee maayer deyr waad garanaysaa kolley dabeed Salebaan Daahir baa hadlay oo run ahaantii noogu weynaayo Salebaan baa yidhi war kabtanka ayaanu ka dhignaa kuma sharaxan buu yidhi dabadeeto intaan la wada hadal Maradona soo boodo wuxuu yidhi anaa sharaxan dabadeetna wuxuu ku yidhi waar adiga kaa dhigan mayno Salebaan Daahir baa ku yidhi waar adiga kaa dhigan mayno moogta markaasuu yidhi warniyo weli kelmad baan xasuustaa ninkaas nin faniyo ahaa moogta wuxuu yidhi war kabtanimada anaa u sharaxanoo malaa ima garanaysaana buu yidhi hadda odayga dhan baan la qadeeyaa buu yidhi odayga dhan ayaan la qadeeyaa waa dawladdii hoose waxa u ciyaaraysaa anaa hoos joogtaan buu ujeedaa moogta kabtanimadu markaa doonayaa dee dawladda hoosena maayarkii baan la qadeeya odayga dhan baan la qadeeya odayga dhan u jeeda waa maayarka miinis moogtay wax walba qadadan kaga dhaadhicin karaa buu leeyahay yacni dee si fiican baan u fahmay adigu kooxda horyaalka ah adigu aan kuu dhameeyo maxamedow inta aan yaro dhameeyo kabtanimadii adigu calaa kulli xaal markii dambe anigaa lay calaami saaray inaan kabtan noqdo waqtigaas dabeedna saas ayaan koobka ku qaadnay anoo kabtanoo aad u faraxsan baan guddoomay maalmaha ka mid ah sax markaas kooxdaasi berigaas saas ayaanu ku hananay koobkii ugu horreeyay ee horyaalka ee gobolka saaxil ama degmada Berbera waayo farxan kooxdaas horyaalka ahee ciyaartooyda qiimaha badan joogeen Salebaan Daahir marka la eego Xinagood idinka la bidega hay'ad ragga noocaas joogeen aad ka mid ka ahayd maxaa sababay haddana caafi inaad ku biirto oo sanadkaas sidan ogaa la ururinayay oo aad u tamar yareed wallaahi horta maxamed waa dogsoontaho nin walba saaxiib
dadku way dee saaxiib guud waa la waday saaxiib gaara baa jira marka wallaahi run ahaantii rag badan oo aanu saaxiib ahayn oo ka mid ah cabdirasaaq cadleef allahuma salli calaa maxamed waqtigaas waad garanaysaa naadiga caafi qaafkii ku aasaasantay waxay ku aasaasantay shaqaalaha ayuunbaa ciyaaray dabadeeto shaqaalaha oo ay ka mid ahayn macaa dhaktar cabdiraxmaan iyabaa ciyaarayey nin maxamuud ciga la yidhaahdo oo maamul u ahaa cumar isteelal cabdirasaaq dhagor allahu naxariistee cabdirasaaq cadleef rag badan oo noocaasa dabadeeto waxaa nagu sababay cabdirasaaq cadleef oo aan isku koox ahayn saaxiib gaarana aanu ahayn aniga isagii ticedhiyo ayaa nagu sababay markaa cabdi xandoon baa isna oo isagu waxa ciyaartay cabdi xandoon iyo cabdirasaaq cadleef iyo ku jiray cabdi xandoon lafkiisu haliyey buu ahaa haliyey qaaliya buu ahaa dabadeeto cabdirasaaq cadleef ayaan wada tashanay dabadeeto aduu kooxdii dee dowladda hoose waxay noqotay laacib ciyaartoy fara badan oo culus baan noqonay oo dee ciyaartoy ahaan tayo ahaan fara badan baan noqonay markaa waxaan isla yaro qaadanay in dee aan si aanu koox kale u anfacno in aanu isla kaashano isna yagadh ciise oo isaguna ka mid ahaa kooxdan naadiga dekedda ayaa isaguna fikirkii nagula soo biiray in aanu koox kale oo kooxahan kale dee si tartanku dee kooxugu bataan aanu dee samayno ayaa waxaanu ku taageernay kooxdaas oo waqti maalmaha dee aada u jilicsanayd inaanu soo adkayno si ay uga mid noqoto kooxaha dee degmada ka ciyaara ee heerka koowaad sidaasi ayaan wax cilada ama wax xumaan ah oo dee nimanka waaweyn iga wada waaya aragsanaa run ahaantii ee kudayashada mudan na kala dhex yaalimay jirin sidaas ayuunbay ahaydun sidii aan kaga yaro wareegayaan ugu wareegay kooxdan caafi aad iyo aad waayahay kooxdii caafi bal 2-1 aynu ka taabano sanadkaasaa tagteen sanadka halkaad ka gasheen sanadkii kusoo xigay bal iyadana runtii kooxdii caafi iyo waayaheedii iyo waqtiyadaas bal iyadana xoogaa yaro guudmar naadiga caafi oo ahaa naadi taariikhi ah oo somaliland ka tilmaaman waxaanu ahayn inteedaasaan ahayn wareegii ugu horreeyey waa isla wareegii labaad ee la qabto oo ay ka mid ahaayeen kooxo aada u cadcadi ka mid ahaayeen kooxda fishariska oo kale oo rag aada u cadcadi oo cabdixakiin kofra goolka u hayay isuduwa shaafici ciyaarayey naasir xasan aadan oo haliyey ciyaarayey allahuma salli calaa maxamed axmed shodhe ciyaartoy ciyaarayey faysal dhooq rag badan oo noocaas ay ciyaarayeen allahuma salli dekedoo kale oo adkayd dowladda hoose oo dee anaguna aan ka tagnay laakiinse sii adkaatayba markaas waqtigaas waxaanu adigu calaa kulli xaal ka gallay run ahaantii kaalinta labaad oo dowladda hoose unba hal dhibic nagaga qaaday weliba waqtigaas oo aan run ahaantii dee dowladda hoose marmar aan xagga horeyar markan waa lay bartay ciyaar horta ayaa laygu yaro bartay ciyaartaasi waxay ahayd maalin aan ka wareegay dowladda hoose maxamedow aan kaa yar dhex galee waanu soo noqonaa taas farxaana way caamasadiisu xagga damaan marka adigu marka kaalinta labaad baan ka galnay waqtigaas wareegaas iyadoo weliba aan jaaysadda gool dhalintana waqtigaas xinagood igaga qaaday 1 gool oonu kala lahayn 8 gool iyo 9 gool kala yeelanay okay maxaad markaa kula guuleystay kooxda caafi markii dambe wax koobaba caafi waxaan kula guuleystay 2 koob waxaan kula guuleystay koobkii 98 oon isla markaa jaaysadda anigoo weliba labadaas sannadoodba ku tilmaanaa kabtanka kooxda ayaa waxaan kula guuleystay hadaa ku darankii berigii wasaaraddu anaga dekada guddoonsiisaa ku daran kaas lamid oo qaadin maxamed koobka waanu qaadnay dee anaga lahayna waa iska caadiyaya sawirradii baan kusoo gudbinayaa koobkaas dee wasaaraddu baa yar kala qaybsantee koobka run ahaantii dee wasaaraddu waa dekada siiso waa idinka qalad galay ciyaartoy ciyaarsiiso 3 dhibcood maxamed kaas 99 buu koobkiinii sanadka hore qaadeen kaas 99 buu haadee yimuu jila 2000 waxbuu ku soco aduu calaa kulli xaal 2 koob baan kula guuleystay anigoo waqtigaa kabtan ahaa weliba jaaysadda gool dhalintana ku qaaday 11 gool ayaan ku qaaday jaaysadda waan xasuustaa jaaysadda gool dhalinta way farxan barnaamijku wuu dheer yahay wax badan baa gadaal nooga dhiman labada kooxeeda qaaliga la soo qaadatay qiimaha badan marka laga yimaado kooxda taariikhda fiican iyo rikoodhada fiican ee aad kale oo xasuusto iyo isbedelka aan ka sameynay weligeedaan koobka qaadi jirin ee rafaadka koob la-aantu ka haysatay dekada xilligeed kusoo beertay iyo bal waayaheedii kooxda dekedana iyadana bal isla waqtigaas naadiga caafi aanu ka tag ayaa waqtigaas waxaa dhacday horta niman badan oo horta halkan waxaan ka xusayaa aan soo yaro dhaafay niman badan oo waqtiga caafi aasaasay halkan ka salaamay ugu mahadnaqayo oo ay ka mid ahaayeen cabdikariin cadan cabdi xoogayaha dowladda hoose
ceeri gaabo allah ha u naxariiste waxaan u ducaynayaa cabdikariim axmed maxamed cabdikariim axmed kijin rag badan oo noocaasi oo kooxdaas aasaasaya lahaa horta halkan waan uga mahadnaqayaa isla waqtigaas maamulkii iyo nidaamkii waxaan xuseen cabdi xasan waxaan kaloo magacaabay doctor cabdiraxmaan isla waqtigaas waxaan mahadnaqo dhan gadaal baan kaa siin doonaa ku soco horta barnaamijka markaas waqtigaas oo caafi naadiga caafi uu baaba'ay oon yar kala tagnay ayaa wanagii dee isugu nimi kooxda naadigii dekedda oo ka haraadanaa wax kooba dhaqaalo badanna ka bixi jiray wax koobana ka haraadanaa maxamedow adigii garanaya waxaynu dee koob dul dhignay oo adiga garanaya isla 2000 inagii samaynay kooxda dharnaantii kooxda adiga waan kugu nimi seniority-ga waad naga lahayd adigu kooxda adiga kugu nimi oo kulacaan kugu nimi inagii koobkii ugu horreeyay qaadnay ugu sii koobabkaad ka tilmaaman koobkii ugu xamaasadda badnaa buu ahaa waqtigaas aynu koobka loolan adig inaga dhexeeyay koox la odhan jiray aljaasiya oo u badnaa ilmo cawaandi صح wadiga garanaya waxaanu kaga qaadnay دريس بونك حسوستا والله وين حسوستا دريس channel بين كعيارنا دريس كchannel بين كعيار جرني رجي عن حسية كواحد واحد كمدها أذا كمدها تعب با كمدها كل عا كمدها أول جول فرحان با كمدها ناصر إن كوا أدو نكسب بينه هاين وين حسوستا عبد الرحمن أفرندود كنا لون شهر هير أفرندود با كمدها الله يرد واحد سنتي نقولوا وقت جالس أقول لفتي بيس عصب وقت جال جرام كمان يسوق لينا واحد سنتي محمد عياره يقول نيجرو وحمود يعني يرى وقت جاي إنه عياره يكوب كان أنا قاعد وش نيجرو وحوها ولا بس كي جول كي كواد إيه إنه دلنا أيام كبد بار كسر حراضي كبد في عمل سوتش بيس ليه دور راعي جول كي كواد سجن نوري وأنا حسست والله إن سنة خاص عمارة كمدها عمارة لفت جيسا كمدها عمارة سينيور كوا سينيور بوها حاجة ماشي أقول أنا ماشي أقول مكملها إن هاي كوسعو سنة خاص تاريخ يعني سنة كيكو حقيقي سنة كيكو حقيقي سنة كاسي تاريخ بدن بوها وأنا حسوستايو سنة كا صدق كوبا بكده دول جيني مركز وأنا حسوستاي مال الحفلة أنا دقني على حولي ورمن هنا يقص قرتين بقولي وكل جرم ويا بقى وري مرة من هنا يقص قرتين بقولي بهلا الخوف قديس أنا اسمها هاي يا ماشي ما لا ماشي ما ركبت لا تشوجن مركز أنا رجوا هليي لكن وأنا حسوستا معلنت هبي وقت جاهرتا فرصة بعمل برجع كفايدين برجع سبورت نيو محمدو كبدنا وقت هاي بدنا دتكون كونك سنين كبدنا عيارين قروح ذي وادي قد قرنا يبا إن سفي عن ومركا واحد حسوستا مال ما كمدو إن عيارها سعي سعودين وتقرنا صار نادي دكتور نوهين دبدته الله ونحرسته مختار حمرو أي كوحدة الجاسية الدفاع وجاها ودحكم مرض دحكم مرض ووحن كل شاف سدي سيالة في سبيعي سقرنا صدق مختار حمرو وان سيارة مدني أنا سقالبانها ده وتقرنا سايو نكو ده شاف سدي سي وتقرنا ساب هل ده شافته هل سولها ما كم ده أي نسمرويني بانقرنا يا عند بدته ده لبت شر مركان ده وسصوت فوران مركد مبريد هات سماستان سوي ده لفها وكو حارن محمد أنا حصلت ين كلمة يعني نكى مختار حمرو أنا مسكت هاجن أيوة الله تقول دفتة لا تقول دفتة إذا بدأتنا أنا إلى هون حريسته نكاسي إن إذا بدأته لا تقول دفتة أنا ده سنساتيف من هايو ودرين كذا كعسنا ده نكى تقال بكو قاضيو لو تشرب اللي قدام سباح هذيو سيري قبل قبته ولا تشوتشيو هل كيو عيارت هذا إن أنتن صوير جابيو عيارت واتي إن ديك بدناي هل يبربون كذا بدناي إنه قد بالده جنوسكو ورسم أيها وان حسوستايو بختار حمرو دقح سوق هذايو هل كار دبر كوي قدفتي دبدت كنا كراود بمش هذا بوق بهذا دبدت ما سرق مسه وان قرنا يا نكى ساس ما نوع مسه هذا قلفتي قاعد سيدي فرحان هو كان أقول فتك أنت أداء ريدي بقى محمد أنا حسنتي كلمة يعني سيف عمان حسستا إلهه ونحرسته وحوار الله ونحرسته فرحان sanadahaas waxay ahaa runtii sanado dahabi ahaayeen oo runtii kooxda dekedana taariikhda koobka aynu garoonkii ilaahay raahuna xariista xasan iga buuxinay taariikh fiicanna kooxda dekedana ka xidhnay runtii oo aan runtii la ilaawi karin farxan inagu hore ugu soconna barnaamijku uu dheeryahay ciyaarihii gobolada ayaa la tegay sanadkii ugu horeeyay ee tijaabada kii labaad ka qayb gashay bal waxaad niyada dul geysaa ciyaartii laascaanood
iyo gobolka saaxil bal jawigeedii iyo goolasha sida u dhasheen iyo bal dulgeedana allahumma salli ala maxamed sanadka 2002 waa waqtiga ay sida rasmiga u furmeen ciyaarihii gobolada waqtigaas waxaanu ku tagnay halkaanu ka tagnay ragii haliyadii 16 haliyay ee ka soo ciyaarayay in labadoodaba kamid ahayn ciyaartii koowaad waxaan noo lahayn naascanood maxamedow aan ka yar hor dhacay waxaan xasuustaa maalmaha kamid oo maalintii qorituurka la sameeyay ayaa xagga wasaaradda wanagii tagnay intaan subaxnimadii baska raacnay wasaaradii tagnay maqaaxi ka soo horeysay wasaaradda aad loogu kaftami jiray oo ciyaartooyga dadka oo isugu iman jireen dabadeed nin Faysal Dheere oo jiro tababaro waxa gobolka Maroodi Jeex ayaa kaftan waqtigaan anagana tababare Cabdixakiin Kobra tababareenoo ahaa Kobra nin sheeko badan oo kaftan badan buu ahaa Faysal baa la kaftamo wuxuu ku yiri waar maxaa wixina yaray maxaa iska soo lugoysay buu yiri wallahi waan xasuustaa maxaa iska soo lugoysay ninku ma iska joogtaan magacuun ku qortaan dabadeed waan xasuustaayo waan sayn kari waayo Faysal ana u jawaabay صح Faysal sheekan u soo qaato waxaan ku wiri Faysalow bariba gabadh baa ninkeedii dhintay baan ku wiri gabadh ayaa ninkeedii dhintay dabadeetna xabaashibi ka dul barortay hoogayo baayay gurta dabadeetna ninkii dumaasha lahaaba xabaashi ku dhaco ma jarafadii ciidiisa ayuu juqufo dabadeetna waxay aragtay ninka dumaasha leeday inuu nin xooga yahay صح dabadeetna laabtuu garaaco wuxuu ku naanaga ku nool anaa ku nool saddex jeer yiri dabadeetna hoogayo baayay inta dhaqaaqday waxay u bedeshay waaba la isbaranay betri marka waxaan uga jeedaa ku Faysalow amaanu ma jameeyay amaanu madax yaraan waaba la isbaranay way ku soco ciyaartaasi jawigeeda kalmadan u jeedo marka adigu kalmada saayid dabadeed ciyaartii adigu hadaan soo dhaadhaco ciyaarta maalintii wanagi garoonka galay laascaanood wanaga la ciyaarnay jawi macaan buu ku bilaabmay tashi iyo isku kalsooni iyo israacsanaan ayaan ciyaarta ku galay ciyaartaas anigu waan fadhiyay ciyaarta haafkii hore waan fadhiyay haafkii hore waan fadhiyay dabadna ciyaarta jawi fiican ku bilaabtay isla daqiiqadii horeba Xuseen Cabdi Axmed Ticid oo haliyay ahaa maskaxda garoonka ayaa goolka koowaad inoo dhaliyay kubadu ka soo helo jabi aad koonooga soo jabisay ayuu dhaliyay goolkaas isla goolkii labaad adiga dhaliyay kubad baal ah si yani horizontal baal ah kubad shoot ah ka dhalisay dabadeed haafkii hore waxaan ku kala dhamaatay 2-0 صح may dhibo goolkii saddexaadna dhiba dhaliyay Cabdiraxmaan Dhibo waxaan ka salaamay isagana ay goolkii saddexaad dhaliyay dabadeed haafkii baa dhacay isbedel garoon oo la isbedelay dabadeed ciyaartii bedel baan ku soo galay haafkii dambe anu صح maxamed ciyaartii baan isbedelay kubada saadan u soo ordayba qof baa tuush tuuray dabadeedna Naasir Xasan Aadan baa kubad dheer soo tuuray dabadeedna madax baan sidii u raacay goolkii saddexaad goolkii afraad aniga dhaliyay صح labadii gool kale waxa raaciyay Dhibo oo hat-trick ku noqday hat-trick ciyaartaas Dhibo hat-trick buu ahaa taninkii Faysal baan hat-trickii ugu horeeyay ciyaaraha gobolada ayuu qaatay Dhibo dabadeed ninkii Faysal baan maalnimadii dambe sarana waxaan ku dhimay la isbaray iskoorka ilaa hadda ciyaaraha gobolada aan la jibin goolasha ugu badnaa ka dhasheen صح farxan waxaan jecelahay in dhowr sheeko yar oo sheekooyinkii runtii laga dhaxlay waqtigii iyo waayihii badweyntii ciyaaraha oo waliba runtii aad ahayd nin musasar badan oo kaftan badan oo sheeko badan baad ahayd dhacdooyin badan baad dhex martay ciyaartooyga qaar waxa kamid ahaa dhacdooyinkaas sheekadii la oran jiray baaskii malaa'igta adiga raadin dhex martay oo sheekada baaskii malaa'igta iyo sida u dhacday raadin sida dhex martay nooga dhacyadana maxamedow waqtigaas naadigii caafi baan ahayn waxaan ahayn ciyaartooy ka kooban 13 haliyay ay kamid ahaayeen raayid baa kamid ahaa xinaa kamid ahaa Shaafici baa kamid ahaa Mustafa Xandoon baa kamid ahaa Ticid baa kamid ahaa Kobra kamid ahaa adoo halkaas safar waxaanu tagnay tababar badan ka bacdi waxaanu galay safar dheer Booramaanu tagnay koox faniya baanu hayn ciyaartii Boorame koowaad ayaa waxa dhacday waxaan ku tashanay aniga iyo raayid iyo xamri ayaan fariisanay qol markaas qolka kamid ah baanu fadhinay oo tashanay markaas dabadeed oo balka warrama waan maanta ciyaarta raayid maxaan sameynaa raayid baa yiri saas raayid run ahaantii wuxuu ahaa nin qalbi wanaagsan oo run ahaantii aan dadka hadi goor dadka mutafaayigareeyo oo
aan baqin ayuu ahaa dadka dhiirigeliya dee waynu alla waynu jiidaynaa buu yidhi dabeetna waxaan ku raadow dee layskama jiiday maxaynu ku jiidaynaa dabeetna wuxuu yidhi dee kubadduun baynu isu dhiibanaynaa dabeetna waxaan ku raadow hadda doonaysa inaynu nimanka ka badino anoo si yaroo sheeko faniyana ku daraya baan ku yidhi dabeetna kubaddaan kuu dhiibanaya ii dhiibo halkan soo dhigo dhexdan kaaga dhiibaya halkan ka dhaqaaqo kaa u dhigo dabeetna dhinaca kasoo dhiibo sidaa ugu dhex tur madaxuu ila raaraaco dabeetna intuu saa eegay waxaan macquul ahayn buu dabeetna u arko wuxuu yidhi waariyaa farxaan waa intuu gacanta saa yidhi buu yidhi waa naga daa kaa malaa'igtuna ma ciyaartee baaska aad sheegaysa markaa weliba magacyadaad xusisa wax la hebel u dhiibo xidhna bartaa uga saaro ina xamari bartaa uga dhiban lahayd xidhna u dhiib ina xamari ticid baa kuusoo furaya halkan kasoo dhiib maalinta anigu difaac baan ahaa oo tababare axmed kijin allah u naxariistee maadaama culays badan haystay wuxuu gartay inaan anigu dee kolley nin jookara baan ahaa garanaysaa dhowr boos buu lahaa waxaan ka ciyaarayay difaac ha baal baan ahaa baal baan ka ciyaarayay ha marka wixii buu maskaxda ka shaqaysiiyay inuu suurtageli karaa waxaanoo baasiyo magasiir kaa malaa'igta ma baasto waayo marka safarkaasi baaska malaa'igta marka bartaa kaga nimaadno iyadana qiso kale aan dul istaagaynaa farxaan oo ahayd sheekadii adiga kubradin dhex martay waqtigii xagga goolka uu kubrays xariifiyaa tiri waxaa kubra maxaa laga baryaya annagaaba goolka gelayna ha iska tago bal qisadaa ka warreydana maxamedow yowm min alyowm bay ahayd dabadeeto cabdixakiin cobra ayaa waxaa dhacday alaminta adag baan ku jirno dabeedna ninkii cabdixakiin cobra ayaa diiday inaan alamintadii iyo wixii nala sii yar wado dabeet adu waan iska yar hornimi oo dee kolley carabiya daan labadii daan baan iskhilaafaan hallo haye si fiican may maqlaysaa maxamed dabeeto waxaa dhacday ninkii cabdixakiin in aanu nidhi cabdixakiin goolka anaa gelayaba dabadeeto iska badaaba dabeeto cabdixakiin halkii ayuu yidhi war maad ka joogi meesha libaaxya meesha hadda libaax baan idinka hayey markaasaan ku uhi cabdow bal qaar kalena kusoo daro igu soo daa baan idhi walle waan xasuustaa maalmaha ka mid ah dabadeeto waxaa dhacday ciyaar baa dhacday ciyaar xaflada baa dhacday oo tijaabo ah dabadeeto intaydii caafi malaa maalinta adiga laftigaaga waad ciyaaraysay laba kooxood baanu noqonay koob baana la dhex dhigay xaflad wall for water day xafladda maalinta biyaha adduunka lagu xusayey dabeeto ciyaartaas ayaan ku kala caddaannay ciyaartaas waxaan ku ciyaarnay halkii garoonkii jeelmanuunka u dhawaa goolku shabag muu lahayn wax shabaga muu lahayn ciyaartaa maalinta cabdixakiin isna wuu ismuujiyey anna goolka waan iska dhaliyey maxamed goolka waxaan iskaga dhaliyey goolku bilaa shabag buu ahaa ciyaal yarar baa daba taagnaa ciyaalka yaraa baan ku goolkii soo galo waxaan ku ihi dib uga baxa dabeetna yararkii kama baxayno oo way la murmeen run ahaantii ciyaarta waanu ka awood badnayn kubadda badankeedu ima imanaynin waanu dee ka awood badnayn ile rag dee waxaan ahayn isku xidhmaya mid yaroo ku yaraa ka mid abaa dhagax igu dhuftay isagoo goolka daba taagan buu dhagax igu dhuftay anoo ka yaraa la murmayo kule waar maxaad dhagaxa igu dhufatay oo kalab iyo waxba saa ujeedaba xidhnagooda marka xagga kale ka soo jeeday kubad soo laaday kubaddii baa dabeetna alla kubadda waan soo jeestay kubaddii baan kubaddii markaan qabsaday sidaa u qabtaday ayaa mise waa ki yaraa daba cararayabaa laad halkaa dhabarka iga dhuftay markuu laadkii dhabarka iga dhuftay buu cararo goolkii dhex cararay aniguna nerfis baa noqdo kubadda dhig iyo waxba maan xasuusanine macaano kubaddaydi sitaan goolkii dhex cararay dee de wixii ka dhacay dhiriidh iyagana oo siidhiga haymin baa dhiida soo dhiga dee wallaahi billahi taala dee habeennimadii maxamedow xafladii markiina lagu casuumay habeennimadii cashadii baan cabdixakiin oo xilkaagii igala wareeg ma hayn karaya halkan igala wareeg baan ku cabdixakiin oo xilkaagii igala wareeg sidii baan cabdixakiin xilkii yaa war ma fududa libaax baad naga haysee war runtaaye waar cabdi waxaa gala wareeg baan ku xilkaaga tirso sidii baan dee adigu sheekadaasi cabdixakiin hawshiisaan uga baxay dee aad iyo aad qisadaas ma saasay ku dhacday runtii waxa kale idan aan jecelay inaan intaan qisooyin ka bixin aan dul istaago waxaa jiray farxaan waqtiyada ka mid ah inaad garoonka gool aad looga xasuusto dadkii waqtigaa joogay ay xasuustaan oo waxaa loo yaqaano dhabalkiika ama laba dhabalka halka eedhinka korkiisa kubad goowale maxamed soofiintu markaa laaday
dhiida madax lagaga soo celiya sideeda u raacaysa intaan maxamed suufi goolkii ku noqonin oo maalintaas dabaaldegii aad dabaaldegtay xitaa lagu qaban kari waay bal goolkaas iyo bal wixii ka dambeeyey farxadda noocaasa baledana la wadaag maxamedow maalmaha ka mid ah bay ahayd waqtigaas markaan ka wareegay dowladda hoose ayaa maalmaha ka mid ah ciyaartaas waqtigaas may kamaan wareegin waqtigaa dowladda hoose baan adigu waan siyar khilaafnay dabeedna waan ka tegey markaa naadi ay aada isu challenge garayn jireen oo dekeda ay aada isu challenge garayn jireen ayaan kusoo biiray ay ka mid ahaayeen kulaca iyo jinac biixi iyo yagadh iyo raggaas noocaas ka mid ahaayeen dabeeto ciyaar saaxiibtinimo ciyaar wallahi me koob baabana dhex yaalay ciyaar saaxiib adigu koobna la dhex dhig munaasabadii moji waxbay ahayd 1996 bay ahayd dabadeeto ciyaarta waan maqnaa shaqan ku maqnaa oo gelin dambe ayaan de aniga fiilkan de veterinary ka shaqayn jiro shaqan ku maqnaa dabeedna shaqadii markaan ka imi haafkii dambe ciyaarta soo gaadhay ciyaarta haafkii dambe aan soo galay iyadoo 2 gool la isku leeyahay oo raggu de isku awood bay ahaayeen dabadeeto sida aad sheegayso kooxdaydii bay ahayd aan markii hore kabtankaba ka ahaa balse aan ka tegey dabadeeto sida aad sheegayso kubad buu maxamed suufi inta lagu laaday buu qabtay maxamed suufi waqtigaa dowladda hoose goolka u hayay dabadeedna maxamed suufi kubaddii uu qaaday uu la cararay kubaddii markuu laaday ayaa waxaa dhacday jinac biixi kubad fog may ahayn jinac biixi oo dhexda taagnaa ayaa hidh ku soo celiyey maxamed biixi mire ayaa madax ku soo celiyey waa run ahaantii waad garanaysaa maxamed oo dee kolley biitada dambe si fiican baan u aqaano markaan golosha dhaliyo dabaaldegaaga bay ahaydoo markaa waxaa ii saamaxday biitada dambe ee aan de aqaano oo kubad dhamelo aada u qurux badan baan dabeedna kacay dabeedna kubaddii markaan sidaa ugu dhuftay dhulka aniga laftigaygii qaada waa igu noqoto sho maxamed suufina goolku kasoo baxsanaa kubaddii baa daba martay oo shabagii waxaan sidaa markaan dabadeedu eegay waxaan arkay kubaddii oo shabaga dhex taalla iyo tarabuunkii igu soo yaacaya waayo tarabuunkiiyo saa igu soo yaacayo dabadeeto dee kolley xiise gaara ay lahaydoo ismabaan ogayinba صح saldhigga de waad garanaysaa maxamed saldhigga agtiisa layga soo qabtay saldhigga agtiisa layga soo qabtayba dabaaldeg awgii dabaaldegii dabaaldegii saldhigga awgee saldhigga agtiisa waxaa halkii barwaani maqaaxidii barwaani loodhan jiray agtiisaaba dib uga soo noq dib layga soo qabtayba sidii lay dabeeyacay yani goolkaa quruxdiisa goolkaa quruxdiisa iyo waa tii dee lay qaban kari waayeba waayo dowladda hoose waxay ahayd tarabuunka waad garanaysaayo kooxdan kooxda guulaha badan dadku way necab yihiin mawt ay necbaayeen waa tii orodkaagii Halo. saddex tegey markaa dowladda hoose guulo badan bay way guul badneed markaa tarabuunku way naceen guulahoodaa badnaad dowladda hoose waktigaa markaa maalintaa goolka quruxda badan iyo guushaas ayaa tarabuunku dabaaldegiisu siyaadu haaba iyaga laftigooda tarabuunka aad iyo aad farxanow waxaanu soo galnay su'aalihii gaagaabnaa weeyaan su'aal baan ku weydiinayaa waa question iyo answer weeyaan waxaan jecelay ciyaartoyga ayaan ku maskaxdooda ku eegaa sida maskaxdooda xasuustoodu tahay marka waan ku weydiinayaa waa jawaabaysa haddii la idhaahdo waayey farxanow kubadda cagta intaad ciyaaraysay guushii ugu taariikhda fiicnayd ciyaartooybaad gaadhay ciyaartooy ahayd guushii ugu taariikhda fiineed ee aan gaadho waxay ahayd guushii aan ka badiyey naadiga MBB oo Somaliland oo dhan haysatay Somaliland oo dhan ko ahayd run ahaantii dee ahayd ba dee rasmi ahaan oo ahayd kooxdii Somaliland ahayd naadiga MBB oo lagu tilmaamayo waqtigaas koox u qalanta national team u qaranta oo naadiga MBB loo aad iyo aad guul daradii ugu xumeyd ciyaartooy ka soo gaadhayadana guuldaradii ugu xumeydna waxay ka soo gaadhay ciyaartii semi-finalka ahayd ee ciyaarihii gobolada ugu horeeyay ee rigoorayaasha gobolka togdheer nagu reebay way laacibkii ugu fiicnaa ee aad ka hortagto maaha difaaci ugu adkaay waxaa laacibkii ugu fiicnaa dad koox wata kooxda kale ka soo horjeesta ugu fiicnaad aragto laacibkii ugu fiicnaa ee iga soo horjeeda ee aan ka hortago waxa uu ahaa Faid Amar Salim way difaaci ugu adkaa ee aad ka hortagto wuxuu ahaa Mustafa Xandoon goolkii ugu quruxda badnaa ee dhalisay abid goolkii dhimalka ahaa
caawintii ugu fiicneed bixiso kubaddii ugu asiiskii ugu fiicneed kubad bixiso xasuusato kubaddii ugu qurux badneed ee ugu aan bixiyo waxay ahayd goolkii koowaad ee Nigro dhaliyay ee waqtigaa dekada aynu ahayn in kubadda inta si fiican u soo xaroodayaan waliba koox adag oo baynu ciyaarayna marmarnaha Alchelsea ma waxbay ciyaarayna kubad shabi fiican baan soo sameysnay sideed u raacay dhacdada ama aad tiraahdo hadda maalintii saa sameyn lahayd sidaan noqon lahayd ka shalayso ciyaartii ugu xumeeyay ka shalayso waxa qalad sameysay ciyaartii ugu xumeeyay sameeyay waxay ahayd Allahumma salli ala Muhammad in ka shalaayo waxay ahayd ciyaartii aan la ciyaarnay waxay ahayd ciyaartii aan la ciyaarnay naadiga baashi beriga dekada ayadu kuna ahaydana dhalinyarta ahaydana raayid goolka naga dhaliyay oo aan firsado badan iga lumeen baahayd hal carabka weydii hal yeelka naga badisay goolka waxa dhaliyay ciise dhaliyay raayid muu dhaliyay laakiin raayid ciyaartu caafimaad carabka weydii waa soo baxday dhacdadaas أول متاسمي هاي ما هي ورنتها والله صح إيد عيسى نقول يقول عيارة صحيح هذا أنت ورب هلا قاضي هذا عيارة سكول كاسي يبدأ لهم هاي بقى ونسقوا مميي ما تسدين جيش هبين كي كمان قبل بقى ما أنت وقت عيارة أنا وقول توبان هي إحنا قد براعيو وحنا رجع ما أنت إذا ليش هذه شهادة يبغى كمان هاي هذا جاي عمارة إياه أي كمان ده كل عام كمان ده شعران لهيد إن دب لجوسه عليو سعره صحده قال لا داعي waxay ahayd ciyaartaas bay ahayd in ciyaartaas aynu wacdaraha muujinay ee run ahaantii loo arkay kooxda koobka hananaysa ciyaartii koowaad bilixda gool aynu dhalinay isla ciyaartaas semi-finalka ah oo run ahaantii toobara wax badan ka qaldanaayeen oo bedelkii ku yar degdegay raggu rigoorayaasha hore u dhiibay ragga rigooraysta yacni hal ciyaartaasan aad isugu qoomay saddex laacib oo aanad nasiib u yeelan inaad koox noqotaan oo aad jeclaan lahayd inaad koox noqotaan oo ciyaartooyga gobolka saaxil kamid ahaa ciyaartooydu meesha doonaan laakiin ama bas aydan wada ciyaarin ka garab ciyaarin laakiin jeclaan lahayd in ka garab ciyaartooydu xitaa kuwii naga dambeeyay ha noqdaan waxaan jeclaan lahaa horta waxaan ku darsanayaa ciyaaryahan wala baso laacibka la yiraahdo wala baso waan ku darsan lahaa waan ka garab ciyaari lahaa waayo markaan naynka ahay kubadda ninka sida degdega quruxda badan u bixinaya raggan aad ugu heli jiro kamid ahaa Allahumma salli ala raggan waqtigaas oo kale inta badan ka soo horjeednay ee aan jeclaan lahaa inaan isku koox noqon balse aanan isku koox noqonin waxa uu kamid ahaa Allahu naxariisto Mukhtaar Xamar wali isku koox manaan noqon waxa Allahu naxariiste waxa kaloo kamid ahaa ragintooda badan koox baan noqonay waxa kamid ahaa iyaga ciise baan noqonay waxa kamid ahaa in la oran jiray Allahumma salli ala Muhammad salaam daahir waan noqonay ismaan laba qori koox baan ismaan laba qori wala bas ismaan laba qori Mukhtaar Xamar saddex ciyaartooy waa jeclaan lahayn koox noqotaan way ciyaaryahankii ugu mucjisada badnaa abid aragto ama ka horeeya ama ka dambeeya ama waqtigaaga hada ciyaartooyga ugu halista badan oran karto waxaan u aqoonsanay mucjisada kubadda cagta kuma laacibkii wuxuu ahaa in kubadda ugu qurux badan ee sameyn jiray horta run ahaantii waqtiga caalamka waxaan taageeri jiray in loo jiray Dennis Beckham ninka u baas ka waan ku garanay ninka u baas ka waan ku sifaynaya yani waan ku sifaynaya sifaahan ninka u baas ka waqtiga la dhigmay wuxuu ahaa Salmaan Daahir buu noqonay mucjisada u aqoonsan tahay waayahay ciyaaryahankii Faniaska ugu kamidisana ugu qosolka badnaa waliga ka garab ciyaarta kuma aha wuxuu ahaa Diego Maradona laacibkii calaamada ugu necbaa ee ka garab ciyaarto wuxuu ahaa yaga ciise laacibkii ugu istaalka fiicnaa ugu xaragada badnaa xinagood buu ahaa xinagood way macallinkii ugu fiicnaad oran karto wax badan baan ka bartay Allahu naxariistay Axmed Maxamed Cabdikariin Axmed Kitchen laacibkii ugu fiicnaa ee ka garab ciyaara
laacibkii ugu fiicnaa iga garab ciyaara xuseen cabdi axmed sicid waayo garoonka aad ugu fiicnaa aad ugu jeclayd inaad ku ciyaarto garoonkii waktiga aad jeclaan jirtay inaad ku ciyaarto dee horta kolley dee lama horaan waa cawska jilaala garoonkii berbera waayo magaalada aad jeclaan jirtay safarka ciyaaraha ugu baxdo waxaan ugu jeclaa run ahaantii halkaas ilaa boorame ilaa safarka ilaa galbeed boorame waayo boorame gabiiley hargeysa waayo way ka ciyaartoy adkaayeen meelaha kale waktigaa markaa boorame meelahaas goobahaas aad u jeclahaa lambarka jeclaan jirtay inaad ku ciyaarto 11 koob iyo toban farxan waxaan ku weydiinaya inaad koobaysaa complete player marka la leeyahay maxaa waa kuma complete ciyaartoy dhammaystiran waa markuu maxay isku darsado markuu sifooyinkee isku darsado ayuu yahay ciyaariye dhammaystiran wuxuu yahay dhammaystiran laacibku markuu isku darsado control baas iyo boos qaadasho boos qaadasho iyo control dhiibmo kubad dhiibmo control iyo boos qaadasho waay farxan afka hore markaad ka ciyaari jirtay waxaa loo yaqaano trio ama saddexda aad jeclaan jirtay afka hore inaad ka wada ciyaartaan raggan aad u jeclaan jiray inaan afka hore ka wada ciyaarno ee weeraryahanada ahaa waxaa ka mid ahaa maxamed axmed ciyaartoy adiga waxaa kaloo aniga maxamed axmed ciyaartoy waxaa kaloo ka mid ahaa xinagood maxamed farxaan iyo xinna waa trio afka hore waay farxan waxaan u imanaa bal kooxdii iyo dhiirigelintii ciyaartooyga koox marka dhammaystiran tahay ay dadku jecel yihiin ee lagu raaxaysto kubaddeeda maxay u suurto gelin karaa in maxay samaysto waxay inay guul gaadho iyo horumar guul fiican gaadho kooxda markay waxeedu hawsheedu u dhammaystiran tahay inay guul gaadho waxa weeyaan kooxda inay kubad qurux badan ciyaarto dadweynuhu guusha guuldarrada waa iska nasiib dadweynuhu jeclaadaan runtii ciyaartooda qurux badnaatay maxay u suurto gelin karaan maxay sameeyaan يعني واحد وش هذا يعني هذيك كوحد يعني ونحن صوب بندقان maya koox inay la jeclaado kubad qurux badan ciyaarto isku xidhnaato dhisnaato maxay u suurto gelin karaa waxa uu suurto gelin karaa maamul wanaagsan isku xidhnaan iyo kalsooni ay u suurto gelin karaa farxan kooxda mararka qaar waxa soo gaaray guul darrooyin marna guulo fiican bay gaaraan kooxda marka guul xumo soo gaadho qadhaadhi sideebaad uga soo kaban karaan aad leedahay waxa uga soo kaban karaan waxaa loo soo qaadan karaa un tusaale kubadda horta markoodii horeba waa caddaan waa barcad iyo barmadow marka taas ayaad tusaale uga dhigan kartaa inaad guuleysan karto lagana guuleysan karo waayo farxan taas ayaad yani doorka garsoorka iyo garoonka garsooraha ka boqora ciyaaryahanada garsoorka go-aanadooda khilaafo ama buuq ka sameeya ama aan ku qancin maxaad iyada leedahay fariin noocyada faraysa maxaa looga baahan ciyaaryahanka marka go-aanada garsooruhu go-aan gaadho adaga marka hore dhigo ama reer kaad bixiyo wax la gudboon laacibku horta laacibku markuu laacib yahay calaminta buuxda qabo tababarkiisu fiican yahay waxa weeyaan inuu kula dhaqmo garsoorka akhlaaq inuu akhlaaq muujiyo waayo xitaa kooxdu jebin karaaba waxay wax dhici karaysaa hadduu akhlaaq muujin waayo in dee uu kooxda darajada ka rifo oo uu ama kaar qaato dabna kooxda halkaasi booskaasi kusoo banaanaado marka waxaa la gudboon laacibka inuu akhlaaq iyo tixgelin siiyo dhexdhexaadiyaha ciyaarta sidoo kale macalinka ama tababaraha tiimku waa qofka keliya ee awood u leh inuu ciyaartooy garoonka geliyo 11 qofku bedelayo isagu bedelo ciyaartooygu mas'uuliyadda ma leh ciyaartooyga inta badan aan ku qancin tababarayaasha buuq ku fura ama la dooda ama ku kiciyo buuq maxaad iyaga leedahay waxaan leeyahay horta laacibku markuu daalo ama aanu isku kalsoonayn ayaa waxyaabahaas ka yimaadaan marka waxaan leeyahay oo markan uga faa'iideynayaa dhalinyarada ninka macalinka tababaraha laacibku waa waalid buu la mid yahay waalid waa macalin his teacher marka waa inaad respect siisaa oo aanad ka hor imanin aad iyo aad farxan kubadda cagta haddaanan ciyaari lahayn maxaad ciyaari lahayd kubadda cagta haddaanan ciyaari lahayn sport kalaad ciyaari lahayd kolley hibo kalaan leeyahay oo
fanaan baan noqon lahaa waan heesi lahaa aad iyo aad farxan waxaan hobbieskii baynu nimi bal dooqyadii hobbieskaaga iyo waxyaabaha dooqaaga ah farxan cuntada noocaad jecesha waa maxaad jecesha cuntada farxan noocee u jecel cuntada horta qadada waxaan ku jecel hilib geela haye hilib geel iyo bariiska cad maaragtay bariiska cadan aan casayna suugiyo waxa lahayn iyo hilib geel aan ugu jecelahay waaye dooqa midabka farxan dooqa midabka aan ahaan lahaa dooqa jeceshahay midabada jecesha dooqaaga ah midabkayga waxaan green baan ugu jecelahay waaye farxan tiimka ama clubka European teamiska kooxda taageero tahay horta hadda waxaan taageero u ahay kooxda Liverpool Ingiriiska Liverpool baan taageero u ahay Isbaanishka waxaan taageero u ahay Real Madrid halka Talyaaniga aan taageero uga ahay AC Milan qaramadana national teamiska xulalka adduunka waxaan taageero u ahay horta runtii Ingiriiska waan taageeraa miduu taageero noqonaysa Ingiriiska Soomaa ha Ingiriiska taageero Messi iyo Ronaldo كيف في عن رونالدو فرح واي رونالدو waxaad ku garan karaysaa wuxuu la soo ciyaaray 6 kooxood buu ka dhex muuqday miislaaksa kooxun buu joogaa aad iyo aad farxan hadii maanta loo farxanow tigirkaagii intaasoo kaasho boorso lacaga diyaaradaas jeedka halka taagan dunida meesha jecesha u dalxiistag halka tagi lahayd horta maxamed adigu Sweden baa joogtay mise Switzerland halka saaxiibkay maxamed joogay ugu soo dhaweynaya ma tagi lahaa aan ku sheekaysan qoslayno kaftamayno aad iyo aad halkaas aan tagi lahaa farxan markii aad yarada filimada hindiga saas ku haydeen Allah silma ogtaa iyadoo fiidiyo jirin baan garanayaa 1980 maxamed waqtigaas 80aadkii hargeysa muu jirin wax fiidiyo la yiraahdo waxaan laba filim baa jiray Cinema October iyo National Cinema Cinema October kama baan bixi jirin ba aad iyo aad filimada aad Cinema October markaas waliba qanaayadaha iyo filmaanta iyo maalinta waxa habeenka lagu soo arkay sidaan uga recording baan ahayo markaas iskuulka maalintaas oo dhan ay dhageysan jireen aniga markaas ku soo boodaya markaas gish kaga siinaya filimkaasi bariga waxa la oran jiray filimku madaacabuha mise ma dabiyada albuha mise daaca aad iyo aad dabada filimku halkaasaan sifihiisa iyo waxa soo dhan uga sheekeyn jiro dadka aad loo dhageystaa ma ka sheekeyn jiray ma ka mid ahaa filimka aad u xasuusatay waqtiga Cinema October ku daawatay maskaxdaada aan ka bixin waa filimkee والله هرت فيلماتي ugu wacnay soo mar waxa kamid ah Qurbani baa kamid aha oo sunuuti amaan heesa fiican qaadaysay disco baa kamid aha Allahumma salli ala Muhammad filim loo jiray in filmaanta bariga magacyadooda aad ma naqamsho qanaayadun baan dhexda ka yar qasin jirnay hadii aan Qurbani dul joogno heesihii Qurbani sunuuti amaan maxaad ka xasuustaa jaddi gooye tintirinti shaahe oo baasani chahe aha baasani chahe eesan ka xasuusta sunuuti amaan labada jeer la kala qaadaysay marna finad khan marna marna Faris Khan oo kale aad iyo aad disco kale waxaan aad u jeclaystaa filimkii disco kale ma garanaysaa heesta Rajista Khan oo ku guubaabinayay Grand Master ee lahaa Dorodina Sanogi दुनिया है दिलबानो असल के दिए असल गेल मारे हम सो दे दीवानोगी ओ दोरो दिन सारी दुनिया है दीवा है दिलबा वقت قالي هي يرنتي وايهي دhalay ciyaalnimadii farxan waxaan imaanaynaa halkii profession-kaagu ahaa fankii Soomaalida iyo suugaantii farxan haye balka war suugaanta sidoo ku tiina صح daniyow waa de kulli waa hibadeeda labaad ay ugu abuuranoo de waqtigii horeba waxaan ahaa anigu iskuulka dhigtay kulli haddana hibadeeda labaad bay ahayd waan jeclaa fanka waayo waxaan deganeen xaafad gurisama xidigta la oran jiray waxa deganeen fanaaniin badan ruwaayadaha anigoo inaan yaraa 78 79 ayaan ruwaayadaha u raaci jiray markaanu de ay ruwaayadaha dhigayaan markaas 78 bad ruwaayadaha ay ugu baahan farxan indhow ma tiiso anigoo inaan yaro caruur ah oo 6 jir meelahaas nin yaro waxaan ahaa nin yaro weyn baan ahaa waqtigaa
79 adios meelaha aad raaci jirtay marka maxamed waxa igu sababtay waan iska dhageysan jiray markii heesaa duubayaan marka dabadeed waxaan ku biiray 1984 85 waxa kacaanka sax iskuulada laga qori jiray dhalinyaro wax kacaanka oo heesaha la bari jiray tartamay geli jireen tartamadaas markay galaan xamar baa loo qaadi jiray marka halkaas ayaan markii dambe ku biiray waxa kacaanka on ay igu suurto gashay inaan waliba 1986 85 aan ka soo heeso fila Soomaaliya waqtiga halkan nimka madaxtooyada xarunta jaalasiyaad fila Soomaaliya loo jiray waqtigaas waxa ay suurto gashay anigoo waftiyo uu hogaaminaya Gaani maxamed xaashi Gaani kulay taariikhdiisa waad maqashay wuxuu ahaa xildhibaan sarreeye guuto wuxuu ahaa taliyihii qaybta 16aad ahna barasaafka gobolka waqooyi galbeed isagoo uu hogaaminayo oo aanu nahay 30 inan iyo 30 hablood oo nala soo baray 25 heesood ayaanu ka heesnay fila Soomaaliya iyo National Theatre Xamar oo aanu ismudanay madaxweyne Siyaad Barre gacanta soo tano si fiican aan wada xitaa wada cuntaynayba madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya waqtiga farxan bal heesahaas iyo suugaanta ku noqono bal maxaad ka xasuustaa dadweynaha maadaama barnaamijku madadaalo leeyahay bal heesaha aan jecelahay inaad nagala qayb qaadato hal heeso Soomaaliya oo iminka waqtiyadan heesaan jacaylka heesun de qalbiga ka dhex buuxista jeclaan lahayd inaad wadaagto wallahi waxaan jeclaan lahaa hees kulley run ahaantii hadii goor waxaan u adeegsadaa qofku markuu iska bulshaawiyo hees hadii goor xaaskaygu marka ma aan buuq ama kulley waxa nin iyo naagti gabcol ma aha nabadna maaha marka hadii goor markaan yara dareemo kacsanaan markaan yara dareemo hees aan run ahaantii ku dejiyo oo markaan u qaado de ay xasiloonato run ahaantii sida heesta waxa qaada nin la yiraahdo Maxamed Faarax Xirsi Allahu naxariiste wuxuu ahaa macalinkayga waxa kacaanka heestaas waxa la yiraahdaa Mililico soo dhawaad marka heestaas waxa weeyaan malabso dib ayay mayeso hilaay malabso dib ayay mayeso ilaa irta oo magosho aleen lagu mariimay oobaan madheedliyo sida mili arooriyaad oobaan madheedliyo sida mili arooriyaad maray ku hayaa muuqaaga goortaan kalgacayl mililicayoon muuqaaga goortaan kalgacayl mililicayoon lama absuuday xiisaha mataantii jacaylkaay kamaarmi mahaye kala maarmi mayne hamidowdo nolosheenu miyirkay gagkaabay amaankay gadeeqay amiirkay gagkaabay amaankay gadeeq maamus gobeediyo migo gaari leeday ka dhex oogtay mudhanoo intu qurux u mudan yahay ka dhex oogtay mudhanoo intu qurux u mudan yahay bidaay mataantii jacaylkaay kamaarmi mahayo kala maarmi mayne hamidowdo nolosheenu maasha Allah farxantaas waa heestii dejinta xaaladaha waxa weeye markay cidka galaan soo maaha maxamed aan kaa dhex gale nin aan wada shaqaalanahay baan beri dhowto fiilka isu raacnay dabadeeto show reerka ku kacsanaa buuq unbuu niyo buuq baa igu kac niyo maca dumar baan u diro markaan ku war dumarka looma diray maxaan yeelaa buu yiri waxaan ku WhatsApp-keeda ma haysid baan ku dhahaa heestan aan u qoray waxaan ku dhahay heestan u dir dabadeeto heestan u dira iyadoo qoraal mise iyadoo coda iyadoo qoraal buu diray heestan u sheego midhihii baan u sheego qoraal buu diray heestii dabadeetna khamiistan soo xaroon jirnaan soo hoyin jirnay seen habeenka jimcaha u joogna guryaha mawt dabadeeto ninkii cali baa ninka la odhan jiro dabadeeto ninkii cali markuu gurigii tagay gurigii buuq kaga hor iman jiray baa mise wallahi kala arago dhunkashaaba laga hor iman markaas lagu yiri
oo soo xigmad baa kugu duugneed baaba lagu yidhi annaga buuq damaha noole mana waa guriga wuxuu yidhi unsigaaba saa isu weydaaranayay buu yidhi wuu la soo hadlay markii wuu soo garaacay war wallaahi bilaha talaa kuma ilaa ninkii laa imkii soo xasuustaa markaa waqtigaas kacsanaantan dumarkii waxaana kelmad terminology baan u bixiyey waxaan u bixiyey kuraama garaac baan u bixiyey mawti kuraama garaac markaasuu yidhi walle dabeedna heestan markaa waxaa la yidhahdaa magaceeda waa anti kuraama garaac ninkii imanka markii soo garaac buu bal anti kuraama garaaci bal ka warran buu yidhahdaa ninka maxaa lagu yidhi soo xigmada kugu dugnayd soo xigmada kugu dugnayd waxaana nagala aamusnayd mad mar hore tiraad managa mafiiqiyo malqacad kuga soo tuuro leenba halkiiba ninkii wallaahi heestan waxba u tartay markaa ninkii miyirkayga kaabay maankayga deeqay maamuus gobeedii milka gaaray leedahay bay deeqday bay ku tiri markiiba heestaana waxaa tiri farxaan oo sad sheegtay macalinkaagu baxa kacaanka ayaa heesta qaadi jiray waxaa laakiinse sameeyey nin tababaro ahaan jiray gobolka waqooyi galbeed waqtigaan kaaga sheekeynayay gobolka waqooyi galbeed tababaro ahaan jiray loolan jiray cumar boodo ayaa midhaha lahaa heesta bal 12 ciyaartooy dream teamka ahaa bal iyagana dhala wadaag oo ka bilaabay gobolaha اللهم صل على محمد محمد horta waxaan jeclaa horta idee halka hibada fanka inaan horta si yar wada laakiin sabab ku soo noqon doona waan maleynaya maye u soo noqon imanka ka baxayna maxaad ku dar lahayd hibada fanka iyadana hees kale nagu xigsiin lahayd de waayo bal soo daa heestii hore waxay kuraama garaaciyo waxay xaaladaha dejinta bal mid iyadana hadda dejin baa tan laftii caadiya tan kalena waxay ahayd de horta kulay mara maxamed wad yar dhowr jeer baan guursaday moogta marka guurkaygii labaad heestii aan ku xasibiyay guurkaygii labaad ayaan doonaya inaan kuu soo daayo marka heesta waxaa qaada maxamed saciid bk waxaana sameeyey nin aanu xanaanada xoolaha veterinaries ku nahay oo nin dhalinyaro da-yaro ardayda sheekh ka soo baxday ayaa oonu isku shaqaalanahay ayaa heesta midhaheeda iskale maxamed yuusuf qolqol la yidhaahdo maxaa la yidhahda ninka محمد يوسف قلقل هاي هيستون waxa la yiraahdaa cawo la yiraahdaa heesta هاي sooda bal way cawo alafo iskembaro eeslaygu ka daray cusub iyo dhul badlaan agahaaga dhigila alafko iskembaro eeslaygu ka daray cusub iyo dhul badlaan agahaaga dhigila ciisi iyo wanaagban kugu caawinayo cilmi baan ku barilaa caashaqu kowye cilmi baan ku barilaa caashaqu kowye ma ciyaaraye dhugo sidaad ila culustiyo inaan wada caweynaa siday cajabinay wajigaaga celiyo arakumahani abuureen hadalaadka cabatana caway kumahan idhaahdeen talamahani canaadeen caqligahaagu keeno kuman caasiyen abiid haddaad qaata calankee kuman caasiyen abiid haddaad qaata calankee ma ciyaaraye dhugo sidaad ila culustiyo inuu wada caweynaa siday cajabinay واه فرحان محمد ها هو حالات كلا صاحب حالات كلا نجلسي ماها ويا ولي محمد سوات ندور شوقنا هي مو يحكوا هارين heestaydii aan sameeyay anti kuraama garaacahayd bay ayay harsan barkii kuraama garaac u dhacay tafarcan bila heesta adiga sameeyay bila laga xalaamo kalmada heesta qaado daniyow heestaas lama xadi kare markhaati ka hawo adigu iminka ba waaye soo daa
heesta horta niyow dee kolley wuu iska dhacdaayo marka buuqu waqtiyada ka mid aba adigu waxa la dhaha family problem baa ku dhacay family problemkaas dabadeeto kolley qofka marka stress ku dhacana maca physical change baa ku dhaca maca muuqaalkiisa guud baa isbedelada qofka waayo farxanow heesta waxaan ka dhiganaynaa heestan waa hees qiimo badan leh waan ku soo xidhi doonaa ee waxaan ka horreysiina dhex gelinaynaa dream teamkaagii dream teamkaygan haddaan ka bilaabo gooladuhu waxa weeyaan cabdixakiin aadan maxamuud cobra oo u dhigmayey waktigaas Gianluca Buffon haye kubra haye lambarka labaad haye maxamed cabdilaahi cawad haye biriq haye saddex mustafa aadan cabdilaahi xandoon haye afar naasir xasan aadan shan maxamed ismaaciil dhimbiil maxamed suufi lix libaaxa raayid anwar saalim toddoba yeyga siciid xamari haye sideed magacyada waa magacyada safarka caafida beriga aan rag la soo baxeen sideed haye sideed allah maskaxda garoonka xuseen cabdi axmed sicid lafa hore haye sagaal sagaal maxamed axmed cabdi shoodhe ciyaartay waayahay toban cabdilaahi maxamed xuseen xinno koob iyo toban axmed kaahin naalleeye kuluco oday biiqay koob iyo toban ninoo culculus baad soo qaadatay safkii hore waxa ku xushrag culus waa maasha allah waa shaxaad qurux badan weeyaan sax farxan intaynaan heestii u gelin gabagabada ahayd waxaan jecelahay bal tala bixin maan rabaa inaad runtii qaybtii tala bixinta ciyaartooyga iyo runtii wasaaradda dhalinyarada ciyaaro hadda shaqo aad u fiican qabatay horumar fiican hadda wada iyo xukuumaddii madaxweynaha saddexdaas ayaad tala bixin soo jeedinaysa sida adigoo aad u aragto ciyaaraha iyo sida wax u socdaan keed ugu horreysiinaysaa ma dhalinyarada ma wasaaradda mise xukuumaddii madaxweynaha marka waa dhalinyarada horta u horreysiinaya maxamedow ku soco dhalinyarada horta waxaan leeyahay horta mar walba waxaan kula talinayaa oan usoo jeedinayaa in ay ilaaliyaan diinta iyo dhaqanka mar kastaba diinta iyo dhaqanka ilaaliyaan mar labaad anshaxa ilaaliyaan dhalinyaro markaa waxa weeyaan dhalinyarada kubadda ciyaarta haddii horta dhalinta sida guud dhalinyaro tala ahaan intaa waxaan raacinayaa kubaddii baa timi dhalinyaradii waxaan leeyahay kubaddii anagu firsadahan noocan oo kale ah hesheen anagu maanaan helin firsadaha hesheen record leh garoon qurux badan leh saxaafaddii iyo waxba ku dhinac joogaan balse waxaa idinka dhiman run ahaantii kubaddii quruxda badnayd taas oo run ahaantii idinka canaanadi kuma aha laakiin taasi waxay ka imanaysaa marka uu tababaro tayayn wax la yidhaahdo tayadii baad ka dhiman insha allah tayadaas waa iska heli doontaan laakiinse waxaa idin fiican caalamka waxay idin saamaxday in caalamka ninka laacibka ka ciyaaraya Yurub aad markasta fursad ku heshaan daawashadiisa iyo qaab ciyaareedka kubadda ay ciyaarayaan kaga dayda isu dhiibka kubadda iyo kubad qurux badan kaga dayda ha kaga daydanina dhaqanka iyo dabeecadda oo ay ka mid tahay in labadaa la sida uu Lionel Messi siduu xiiran yahay u xiiranin waxaad kaga dayataa kubadda laakiin kaga dayan dhaqanka iyo diinta kaga dayan waxaan usoo jeedinayaa wasaaradda waxaan usoo jeedinayaa dhalinyaradii maanta maasha allah fursad fiican baa la joogaa dhalinyaradii horta gobol ahaan ama horta Somaliland ahaan waxaan usoo jeedinayaa wasaaradda shaqeynayso inaan horyaaladii joogsan in ciyaarihii heerarkii kala duwanaa la qabto in dhalintii da'yareed loo sameeyo garoomo in dhulkii laga xidhay loo baneeyo in yacni
dhalintii kor loogu qaado si yacni ay uga isaga ilaaliyaan balwadaha iyo bad habitiska sida qabyaaladda iyo waxyaabo badan noocaas oo kale ah ay wasaaraddii kor u qaado dee xirfadihii iyo nidaamyadii iyo wixii dadkii maamulayay iyo waxoodii o dhan xitaa kor u qaado gaar ahaan haddaba si gaar ah gobolkaygii saaxil waxaan leeyahay wasaaraddii gobolka saaxil run ahaantii isuduwo wanaagsan oo ayariga u joogaa iminkana waxaa kusoo biiray kolley inan wacan oo xidhiirka kubadda cagtu waa inan wacan inankaa la keenay waxaan leeyahay kooxihii iminka gobolka Maroodijo ama Hargeysa way ka tayo badan yihiin kooxaha marka heerka koowaad loo eego ee gobolkeena waxay kaga tayo badan yihiin raggii tababaraya baa waxay yihiin rag senior baa tababaraya marka waxaan leeyahay shuruud uga dhiga marka kooxaha horta run ahaantii wareegii horyaaladii inkastoo waqtiyada cimiladu aanay saamaxayn haddana sheekh laftigiisa waa nagu qabtaa waxaan leeyahay wasaaraddii gobolka horta ha midoobo gobolkuna mid ha noqdo sheekhna waxaan leeyahay sheekh oo weliba halkaa aan uga faa'iidaysanay fariin gobolku waa gobolkiinii ha tegina ciyaartoy tayale baa idinku jira kasoo qayb gala wasaaraddiina waxaan leeyahay waqtiyada aan cimiladu saamaxaynin ku qabta wareegyadii sheekh kooxihii heerka koowaad ku xidha shuruudo ah ninka tababaro noqonaya waa minimum waa inuu yahay 40 jir si kooxdii tayo u yeelato tayadeedii dee kooxdii ay tayooyin u yeeshaan allahumma salli calaa maxamed waxaan soo jeedinayaa kale raggii la midka ahay waa ragga ahay gobolka joogay oo anigu aan ka mid ahay horta anigu farxaan ahaan diyaar baan u ahay koox alla kooxdii qaadanaysa inaan tababaro u noqdo si tayadii loo helo ragga kale la midkaana iyaga ka mid yihiin rag badan oo noocaasina waxaan leeyahay idukuna gobolka kaalintiina ka soo baxa maanta tababarayaal baynu noqonaynaa insha Allah wasaaraddana sidaas si lamid ah baan ka codsanay in shuruud conditional noogu xidho in aanu waxay tababaro noqono si tayadii marka waxa la helayaa xul wanaagsan oo aan meel kale loo baahno gobolkiya ku soco xukuumadda waxa uu sheegay madaxweynaha fartay talo madaxweynaha waxaan farayaa madaxweyne Muuse Biixi maxamedow aan ka yara dhex gale 1989 waxaan garanayaa madaxweyne Muuse Biixi waqtigii qaxoontigii waxaan joogay meel la bali gubadle mujaahid markaasan saa u eegi jiray meherad baan ku haysanoo shaahay ka cabi jiray saasan u eegi jiro wuxuu ahaa horta raggii dee mahalganka uu ka mid ahaa SRMT dabadeeto qisal soo qaadanaya maalin sheeko qosol lahayd ay xasuustaa niman baa dagaal baa dhacay dabadeetna dagaalkii baa dhaawac badan la keenay magaalada Beelgubadle dhakhtarku ku yaalay dhaawacii dhiigga loo shubayay marka haddii goor marka dagaaladu dhacaan dad xoojina baa la ururin jiray baabuur lagu soo guri jiray mowt dad la soo raafay baa la keenay dhakhtarka agtiisa meel yar qol yar dhakhtarka u dhow wala 10 nin soo niman badan baa dhaawac waxa la doonay dhaawac dhiigga looga shubay mowt marka nin kamid ah baa lagu yiri maxaa la igu sameeyay dhaawac dhiigga lagaga shubay baa lagu yiri dabeetana wuxuu yiri war miyaa waarantiin buu yiri nin jiifana miyaa kicinaysaa nin taagana miyaa jiifinaysaa buu yiri ku socod talada ku socod talada bixinta way marka waxaan taladii marka madaxweynaha Muuse Biixi waxaan leeyahay madaxweyne taasaan ka soo qaadanayaa de kullay wasiiradii madaxweyne wasiirada ragga shaqeynaya ee aan jiifana kici ragga taagana jiifi ragga aan shaqeynayn wasiin madaxweyne wadankii aad magacawday in shaqadoodii ka soo bixin waajibka de kamar ragga shaqeynaya dibadda jooga ee asleeda way shaqeynayaana de madaxweyne waxaan ku leeyahay ragga toosidee madaxweyne taladiisna ku soo bandhigay aad iyo aad farxan waad ku mahadsantahay fikirkaaga iyo tala bixintaada weliba waxaan aad ugu faraxsanahay inaad gobolka saaxil si fiican ula hadashay oo aad tilmaamtay inaad tababaro diyaar u tahay ciyaartoyda waaweynana doorkooda tababaranimo inay qaataan maxamed may maqashaa farxan farxan imka kuma maqlaya sax waxaan aad ugu faraxsanahay talada aad u soo jeedisay gobolka saaxil adigu aad ku baaqday inaad tababaro diyaar u tahay inaad noqoto ciyaartoyda waaweynana inay tababarka ka qayb qaataan way tababaranimadu iyo kooxaha inay rag waayaarigi tababarayaal u noqdaan ay hogaamiyaan waxay qayb tayeenta kooxaha ay ka mid tahay marka fariintaas waxaan jecelahay inay guud ahaan gobolka wada gaadho oo ciyaartoydii waaweynaa magaalada jooga ay kooxaha
doorkooda qaataan bal tababarada bixiyaan kooxaha hogaamiyaan sida Hargeysaba Didira Dhabe iyo Yaasiin Abayare iyo raggaas tababarayaasha أنا وديار باني كو على كو حدي قادنا سا إن محمدو ركي كلا كلي إن شاء الله باق يقلفت جود لا باقص وانفرع يعني يجلس وقيب قاتها. واي فرحان أنت هسه كسر جبنا جود هم برنامج كي رنتي دحرة بان وتها قلنا إنه تاريخ فرحان مسلي بان كسر أورنا. عطك سروي القاد محمدو. هلو. فرحان ما مقشة. كم بقى يمك ها. أنت هسه كسر جبنا برنامج كي دحرة بان وتها قلنا إنه كسر كذا هذا الله تاريخ دي يوايه عيارات فرحان مسلي بان. أنت هنا برنامج كسر جبنا هسه هذه أدوات سمايسي أدوات تلقى شيء ديش أنت حالها بالسوداء. اللهم صل على محمد هيستن أنا سميه مرها يلي حنكه اللهم صل على محمد هيستن وحلا يلهذا دلمت رهانتي وقتي بوق يقول أو حاجة فاميلي أيان رهانتي وحيقول يرجع physical change وحلا يلهذا طبعا حالة دون وين وحكاك أنت حالة مرك حالة كنت ما دوين محمد كل قفك وحكاك أنت كل أنا هلا بوركو أنا يقبرنين أيان هيستاس أيان سميه هيستاس waxaan ku bilaabay dadku bay go'an jireen maxaa ku helay marka physical change bay ku dhaco waan yara dhuubtay barigaas oo xogaa waan yara dhuubtay dabeetana heesta waxaan ku bilaabay jacayl dhantaale iyo kalgacal dhex qaaday baa u dhaadhacay waxyo dhagada cishqi bay igu dhagada cishqi ayay igu yeel marka heesto laxankeeda le waxay noqonaysaa jacayl dhantaale iyo kalgacal dhex qaaday baa وداعي وحيه دنجدا عشقي بيجيال وداعي وحيه دنجدا عشقي بيجيال ضيها أنا جوديو ضيها أنا جوديو والنهار دكتور بادو تحي ضيعي سهل كي بوكتو دكتي دكودير ستي hadibin 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 ruuxdiyo qalbiga u dheelmadaya wada bes kale baadna waxa weeye halkaad iga dhaawacdiyo halbowlaha dhigaya halkaad iga dhaawacdiyo halbowlaha dhigaya dhankaga u helano dacdiyo arrin bay igu dheer dhankaga u helano dacdiyo arrin bay igu dheer waxaan dhefuga dulkeen u dhowrqaday haybinteed inaan dhaqankiyo hiddaha qaraar isku doorane hadibin 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 ruuxdiyo qalbiga u dheelmadaya wada maxamed ka waran ما شاء الله فرحان موسى ليبان runtii nin ballaaran baa tahay door roolal badan leh ciyaaryahan suugaanyahan runtii bulshada dhexgalkeeda kaftanyahan runtii nin la heli kara ma tihid ma sha Allah anu si fiican ku garanay maxamed mid yaraan uga faa'iideysta in yar haye maxamed in yar صح barnaamijka waxaan kusoo kordhinayaa barnaamijkan horta run ahaantii barnaamijkan waxa weeyaan barnaamij aad u qiimo badan maxamed waxaan kaaga mahadnaqaynaa marka hore dhalinyaro badan oo dee waqtigaan ciyaarnay waqtigaan dhalan laakiin iminka dee gobolkii iyo magaaladii jooga ayaadna bartay oo run ahaantii oo dee hadii goor markaan shaqeynaya maan dee waniga fiilka veterinary ka shaqeeya ayaan odhan jiray hadda ciyaartoy baan ahaa markaas qaar guud ah xitaan qarax sheeganaysaa bay qaar guud ahaa aba tan qarax sheeganaysaa wallahi war dhigaygan ku maqlayay dabadda markaasaan ku saanaamus jiray moogta marka wallahi waxaad noo suurta gelisay oo aad ugu mahadsan tahay maxamedow inaad dee bulshadii muhiimadda sportsku maaha lacag iyo waxaan waa isbarashadii ayaad noo xoojisay rag badan baad godkii ka soo saartay marka maxamedow run ahaantii qurba joogta u dhashay gobolka saaxilna waxaan uga faa'iideysanayaa maxamedow in yar qurba joogtii iyo dadkii wax noqday ee gobolka u dhashay gobollada kale u dhashay inta badan way ka dhex muuqdaan caawinta iyo taageerada iyo taakulanta sportiga ee goboladoodii run ahaantii inta badan ma arko qurba joogteenii ama dad gobolka wax ka ahaa oo ciyaartooydii ama wasaaraddii oo run ahaantii aan dhaqaalo lahayn
taageero badan u muujinaya marka waxaan odhan lahaa dadkii qurba joogta ahaa ee berber ka tegay mid kubad ciyaara mid taageera mid faramaalay berigii waxaan odhan jirnay mid faramaala iyo mid lugamaalaba in gobolkii dee gobolkii lala taageerooyinkii wixii dee kolba u suurtagelayeen gobolkii dee ciyaaro noqotay iyo haddii caawimo noqotaba gobolkii lala dhinac joogo maxamedow intaasaan uga faa'iidaysanayaa waayo farxaanow saaxiib waan kaaga mahad celin waqtigaaga qaaliga waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijka sax barnaamijka intaanan soo afmeerin miyay jirtaa waxaad isleedahay maxamed kuma weydiin oo aad jeclaan lahayd inaan ku weydiiyo wallaahi maya maxamedow si fiican saxaafi maxamed cabdullaahi cawad aada iyo aad baan qiimo badan aad u mudan tahay su-aalihii halka salaanta laagse iyaga bahalka salaanta meel saaxiibaday dhammaan waxaan salaamayaa inta magacayga iyo muuqayga taqaan oo maxamedow aan ku salaamayo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxaanna waan kaa qaaday intaasna kusoo gabagabayna barnaamijkeena waad mahadsanta waqtigaaga qaaliga aadna soo siisay maanta aad noo soo hortay inaad timaado xarunta True Cable Sport TV magaalada Hargeysa daawadayaal intaasaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeena dhaxareeb oo idinka imanayay xarunta True Cable Sport TV magaalada Hargeysa barnaamijka dhaxareeb waxaan ugu talagalnay inaan isku barno ciyaartooydii hore ee dalka Soomaaliya taariikhda kubadda cagta lahaa iyo dhalinyarada jiilka hadda maanta garoomada ku jirta isla markaana waxaan ugu talagalnay inay noqoto tixraac iyo xog ururin laga heli karo ciyaarihii hore maadaama aanay jirin berigii hore arkiif iyo wax la kaydiya aanay jirin waxaan ugu talagalnay bal qof walba intuu xasuusto barnaamijyadaas marka lagu wareysto hadhow toole halkaa laga helo xogtii ciyaarihii hore ee dalku lahaa tan iyo aragti dambe intaan ku kulmi doono barnaamij lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa maxamed cabdilaahi cawada iyo guud ahaan bahda True Cable Sport TV cabdiqadar iyo maxamed dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala